Sarbis. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel ka soo dunida aad ka joogtaan babar kale iyo xubinteennii faaqidaada qodobada wararka waxaan ku soo qaadan doonaa taliyaha ciidamada maamulka Soomaaliland oo u sareeya Nuux Taani ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ciidamadiisu gaari doonaan yoocada ayna soo afjari doonaan nimanka uu ku magacaabay in ay yihiin huwan ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka sidoo kale waxaa jirta golaha wasiirada maamulka Soomaaliland oo maanta uu Muuse Bixi uu hogaaminayo waxay ansixiyeen gobol iyo 3 degmo qodobadaas waxaa isha soo mariyay oo inoo faahfaahin doona saaxiibkay Shiina soo dhow marka hore mahada waa maasan tahay daawadayaashana waan soo dhaweynayaa haddii aan ku bilowno Somaliland sidaan la wada socono dagaal bay ku jirtaa dagaalkaasna wuxuu kala dhaxeeyaa reer Laascaanood ama reer SSC Khaatumo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalkaasi hakad ayuu galay ama siyaabo kala duwan looga hadla qaabka dagaalkaasi u joogsaday oo tabar la'aan xagga Somaliland ka jirtay ha noqoto ama ha noqoto is urursasho iyo diyaar garow ay wadeen intaba dagaalkaasi muddo ayuu hakad ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyay baa marka waxaa soo baxay maadaama oo xilli doorasho ay Somaliland galayso oo la doorasho sidoo kale tan ay jiraan arrimo la xiriira waxa loo yaqaano 18 May oo 33 sano kadib maanta la xusayo in la xusi doono 18 May oo 33 guuradii Somaliland markii ay kaligeed inay gooni u istaagaan ay ku dhawaaqeen ay tahay waxaa marka taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Taani oo eedo badan loo jeedinaya xilligii dagaalku socday isaga saraakiisha ugu sarsareysaba sababtuna ay ahayd dagaalkaas inay istiraatiijiyadiisa iyo qaabkiisa ku fashilmeen saraakiil sarsare oo ciidamada Somaliland oo uu kamid ahaa nin darajo weyn ka ah ciidamada markii loo fiiriyo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen sidoo kale tan boqolaal askartii gacanta lagu hayo markii ugu horeysay muddooyinkan waa la isweydiinayay waxa ay sameyn doonto Somaliland dagaal bay qaadi doontaa sidaas ay ku quusatay maxay sameyn doonaan abaabul dhinacyo kala duwan oo marka qaarkood beela lagu eedeynayay baa taagnaa oo beelaha soo xiga dhinacan reer Laascaanood aad ay eedo kala duwan loo soo jeedinay ugu dambeyntii Nuux Taani waxa uu ku dhawaaqay in Somaliland ay diyaar garow xoog la ku jirto dagaal ay diyaar u tahay ayna gaari doonaan yoocada oo ah meel garowe u jirta wax yar halkaas oo ay Somaliland marar kala duwan sheegtay inay tahay xuduudii Ingiriisku ay Somaliland u xadeysay halkaasna ay gaari doonaan laakiin sanado badan oo hadalkaasi uu socday ilaa iyo hadda ma muuqato sifa ay halkaasi ku gaari karaan arrintani waxay noqon doontaa ama ay u muuqataa colaad hor leh in ay abaabulshay ama ay Somaliland galayso reer Khaatumo oo diyaar garow ku jira oo furimaha dagaalka iyaguna is diyaarinayna halkaas waxaad moodaa mar kale inay ka soo socoto in dhalinyaro Soomaaliyeed la isku xasuuqo barakac magaalooyin la dumiyo iyo dhibaato weyn oo kale inay halkaas ka soo socoto dadka garashada saaxiibkii waxay aad ugu celcelinayaan inuu caqligu shaqeeyo Somaliland dagaalka ay joojiso reer Laascaanood iyagu waxay sheegeen inaysan wax duulaan awoodin cidda duulaanka soo qaadaysa oo iyagu aaminsan in dhulkoodii la qabsaday oo dhul Somaliland kamid uu maqan yahay waxa weeye reer Laascaanood way ama reer SSC weeye waxa kale oo iyadana meesha ku jirta dagaalkan war markii hore waa la filayay sababtuna waxay ahayd Muuse Bixi Cabdi in uu xilliga doorashada ay soo dhowdahay dagaal qaadi doono filasho la filayay bay ahayd sababtuna waxa waaye in uu yiraahdo wadanku dagaal buu ku jira wax doorasho oo la qabanayo male laakiin madal la xadeeyo oo bisha November baa jirta inay doorasho dhacdo xisbiyada mucaaradka iyo dhinacyada hadda isku wada afgarteen oo isku faansan yihiin tii way dhici doontaa sida ay hadda sheegayaan laakiin waxa ka horeynaysa dagaal sida uu ku dhawaaqay haduu dagaalkaasi dhacana doorasho kama dhici doonto Somaliland sida ay dad badan qabaan maanta waxa muuqata marka reer Somaliland warkoodu inuu cad yahay dagaal ay usoo diyaar garoobeen waliba waxa dheeraad ku ahaa oo arrin fajicisa noqonaysa in uu ku baaqayo taliyuhu in ay dadka shacabka hubka qaataan oo ay ka difaacaan deegaanadooda huwanta dad ku tilmaamay oo hore ay Somaliland u sheegtay Puntland dawladda federaalka Soomaaliya maleeshiyad la hubeeyay oo reer SSC iyo al-shabaab waa sida ay hadalka u dhigayeen ay lahaayeen dadka dagaalkan ugu soo qaaday ama Laascaanood ku soo duulay waa dadka nooca mar kale ta ayuu yiri huwanta si aan isooga dhicino oo wadankeena iyo deegaanka uga saaro waa inaad hub ka qaadataan dagaalkan u diyaar garowdaan
هذا الكتليهنا إلا يلي كلا تقلق لكن معلمين اللي صار ضعفي بوحة كسي والرئيسي حيسد ماليشيا دي وديجانا داس كتاجني أو ميت كم إذا بينها حدود الله لا رئيس مال لان حدود الله لا لاسعانات يو ريال لاسعانات دجال الأحمر أي جرا باقي كل دوان أو صار بحياة أي جرا أو نعيد كل دوان يدولة فدرال كأي هذا عالم كأيو dadka waxgaradka intuba ay leeyihiin war dagaalka ka jooga reer laascaanood iyaguna waxay aad u sheegayaan inaysan shaqo ku lahayn dagaalkaas laakiin haddii lagu soo duulo ay diyaar u yihiin dagaalka waxa xusid mudan arrintan inay ku soo aadayso xilli maamulka SSC la filayo mar kaleeto shir madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada uga dhacday magaalada Muqdisho inuu qayb ka noqdo lagana yaabo shirkaas kii horeeto ay ka xanaaqeen oo aan looga yeerin kan inay yimaadaan haddii ay yimaadaanna wararka qaarkood ay sheegayaan in shuruudo gooni ah oo reer laascaanood lagu xiri doono ay ka mid tahay in ciidamadan faraha badan ee deegaanada Puntland ka soo jeeda ee ku sugan Khaatuma ay isaga baxaan maamulkan Puntland ay ku dhex maran yihiin madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada iyo baarlamaanka ku leeyihiin ay banaanka uga baxaan xildhibaanadooda federaalka ay toos ugu xidhmaan laascaanood iyo firdhiyo ee wasiiradooda federaalku ay xagga ku xirmaan Puntland iyagu ay kala gurtaan markaasna ay noqon doonto in maamul loo aqoonsan karo laakiin inta ay Puntland ku dhex maran yihiin Somaliland ay wali ku dhex maran yihiin oo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland aan wali ognahay inuu yahay nin deegaanada ka soo jeeda wax u suuroobi kara inuu san jirin marka waxaad moodaa mar kaleeto in shacab Soomaaliyeed iyo dad aan waxba galabsanin oo dhalinyaro ah inay isku xasuuqi doonaan deegaanadaas dagaal ayuuna cilaamiyay nuuxtaan aad iyo aad baad mahadsantahay Shiinow waxaad kaga dhawaajisay in ciidamada furimaha hore jooga ee kuwa Puntland ka soo jeeda in meesha SSC laga qaado ciidamada waa ciidamada difaac haya SSC arinta ma isqabanaysa muusana waa ka soo buuxaya hadda ciidamada u farbadnaa iyo kana furimaha dagaalka walow xogaha hoose ay sheegayaan ciidamada muuse oo soo bandhigay inay aad u badnaayeen dhalinyarada hadda u badnaayeen kuwa hore ay ka duwanaayeen hasa ahaatee laakiin waxaa leeyahay ciidamadaas waxaa ka buuxa ciidamada Ethiopiana oo waliba qabiilka Oromada oo af Soomaaliga ku hadla oo meel kala duwan laga soo ururiyay in ay ciidamada ku jiraan waayo ciidamada Soomaaliland soo bandhigtay waxay ka badan yihiin markaad fiirisaba militariga Soomaaliya markaad fiiriso waa ciidamo aad u fara badan marka waxaa leeyahay Ethiopian dharkii laga bedelay af Soomaaliga jajabsanaya meesha ku jira arrintaas horta sheegista ama sheegashada markii laga reebo wax cadeymi ma jiraan oo si rasmi ah loo cadeeyay laakiin wax kastaba ama Ethiopian ka dhiga ama Somaliland kaligood ha noqdaan ama meel kale tabaa ka yimaadaan wax qarsoon maysan ahayn inuu Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisu ay ku jiraan diyaar garow xoog badan ciidamo kala duwan ay xurimaha traininka ama tababarada ay ka soo saarayeen qorshahooduna uu ahaa dagaalkii horeeto ee fashilku uu ka soo gaaray sidii ay wax uga qaban lahaayeen oo wax wixii hore ka bedelan ay u keeni lahaayeen muddada dhowrka bilood waxyaabaha ay u qaadatay dagaalkan waxaa ka mid ahaa diyaar garow xoog badan iyo wax la hubo isku dayaan hal mar in ay galaan meeshaas haddii ay galaan ay guulo ka gaaraan laakiin isweydiimo ayaa wali ka imanaya guulaha ay ka gaari karaan midda kaleeto arrintan la xiriirta in ay ciidamadan Puntland ka baxaan deegaanada SSC Khaatumo iyada lafteedu waa arrin aad u culus markii si loo fiiriyo oo noqon karta xitaa shirqool sababtoo ah waxaa loo yahay kaalinta ay ku lahaayeen ciidamadan dagaaladii hore u dhacay kaalinta qalab iyo saanadeed ama militariga ha noqoto ama hub ha noqoto ama dadka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto Puntland ay dagaalka waa iska cadayd oo RSC-na ay abaal weyn uga hayeen markii dagaalka socday ilaa haddana ay wadaan waxyaabaha ay RSC hadda lafteedu ugu kala qaybsan yihiin arrimahan in Puntland laga dhaxbaxay kamid tahay nimankaas abaal ninkii ku galay waa loo gudaayay inaysan mudnayn maanta inaan isxagano oo inaga oo RSC iyo reer Puntland aynu isxagano wax macquul ma ah dagaalo uu nagu furan yahay marka ma muuqato baad moodaa sabab ay uga bixi karaan ciidamadaasi Muuse Biixina ciddu doonaha soo abaabulee dagaal inuu ku tala gashan yahay cidna kama qarsoona waana wax cad taliyuhuna afkiisa waa ka cadeeyay ama boqolaal ha noqdaan ama malaayiin ha noqdaan ama Ethiopia laga keeno ama meel ka baxsan laga keenay muhiimadu waxay tahay inay cadeysay Somaliland in ay dagaal xoog badan oo ay ku qaadi doonto SSC ayna deegaanadii hore dhan qabsan doonto bal ay ka sii tagi doonto oo ay dowladka Garowe tagi doonto aad weyn aad iyo aad baad mahadsan tahay bal waxaan aadinaa qodobkeena kale walow waqtigu uu ina riixayo waxaa jirtaa in maanta golaha wasiirada oo Muuse Biixi uu hogaaminayo in ay fadhiisteen
waxayna ansixiyeen gobol cusub oo kale iyo degmooyin maxay yihiin gobollada degmooyinkaas ku dhawaad muddo 10 sano madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka cagajiidayay oo uu diidanaa deegaano la sheegay markii la fiiriyo in ay darajadoodu ay ka sareyso degmo qaar ay darajo gobol u dhigmaan oo lagu bariyay inuu asixiyo wax ka caadi ah bay Somaliland ahayd oo xilligii Silaayo Daahir Riyaale Kaahin Muuse Biixigan xilliyada ololaha doorashada ay soo dhow yihiin mar walba deegaano ayaa la dalacsiyaa si dadka shacabka codad looga helo ee deegaanadaasi degan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muddooyinkan oo dhan ba arrinta laga hadlayay laakiin dad badan ba waxay aaminsan yihiin in arrintaas iyo Maxamed Kaahin qorshaha isla degan wasiirka arrimaha gudaha ayna tahay qorshe kulmiyo ololo loogu raadinayo waxa kulanka golaha wasiirada oo aan caadi ahayn oo maanta ka dhacay magaalada Hargeysa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu warbixino ka dhageystay wasiirka arrimaha gudaha oo ah ninka soo gudbiyay degmooyinka la dalacsiyay iyo gobolkan lagu dhawaaqay wasiirka wasaaradda gaadiidka oo isagana kamid ahaa isaga iyo guddi balaaran oo dhawaan loo magacaabay inay arrimaha gaadiidka iyo shilalka ka dhaca Somaliland oo aad u badnaa wax ka qabtaan ayaa iyagana warbixino laga dhageystay kadib warbixinada dhinacyada kala duwan laga dhageystay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo golihiisa wasiiradu waxay ansixiyeen Gabiley inay gobol noqoto oo in muddo dadka shacabka deegaankaasi degan ay ku doodayeen Gabiley waa gobol laga dhigo ay arrinta iyada ay dood ka wadeen waxa kale oo iyadana la dalacsiyay oo degmanimadoodii kor loo qaaday degmooyinka Sheekh oo magaalo taariikhi ah markii loo fiiriyo deegaanada Somaliland oo meelaha dalxiiska loo tagana kamida degmada Baki sidaas la mid iyadana degmooyinka la dalacsiyay kamid tahay Caynaba ayaa iyadana la dalacsiyay saddexdoodu waxaan ognahay in hore degmooyin u ahaayeen laakiin waa la dalacsiyay oo darajadoodii budgetkoodii iyo nidaamaadkoodii baa sare loo qaaday taas waxay ka dhigan tahay xildhibaanadoodu inay ka badnaan doonaan intii horeeto siyaasadda saamigooda ay ku leeyihiin oo sare u kici doono dhan kasta markii la fiiriyo budgetka horumarineed ee dawladda ama dhinaca maamulka ka sugayaan isna inuu sare u kaco waxyaabahaasi oo dhan marka arrintan waa lagu kala qaybsamay waxaana lagu kala qaybsan yahay dadka qaar oo soo dhaweeyay oo gabi ahaanba u soo dhaweeyay iyo dadka qaar oo madaxweynaha leh xilliga ololaha tallaabooyinka noocan ah oo qaadi intaas oo sana arrintan laga hadlayay muxuu u sameyn waay isku soo wada duuduubay Muuse Biixi Cabdi tallaabo weyn oo ololihiisa caawin doonta ayuu maanta qaaday waana 3 degmo oo dalacsiyay iyo Gabiley oo gobol ka dhigay taasna waxay ka dhigan tahay Muuse Biixi inuu codad badan ku kasban doono dadka deegaanadaasi ugu horeeyaan kuwa gobolka Gabiley degan ee cusub aad ayay u soo dhaweeyeen arrintan siyaasiyiinta dhinacyada ama deegaanadan ka soo kala jeeda oo muddooyinkii la soo dhaafay ba arrintan dalbanayay ayaa iyaguna arrintan aad u bogaadiyay waxa kale oo jira xisbiyada mucaaradku si toos ah uga hadlay laakiin xogaha qaar ba waxay sheegayaan in ay qaarkood ku dhaliilayaan xukuumadda xilligan inay ku soo aadisay arrintan isku soo wada duudoobe talaabo uu ugu talagalay ololaha campaign-ka xisbiga kulmiye in loo adeegsado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qaaday maanta waana asixinta iyo dalacsiinta degmooyinkaas iyo asixinta gobolka Gabiley aad iyo aad baad u mahadsan tahay Shiin oo dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaa falanqaynta muuqaal arageena muuqaalka inoo sheegaraya asxaabtiinana la wadaaga wixii fikra dhinaca hoose ee committee ayaad ku soo qori kartaa waadna mahadsantiin